ما حنا فك وخرش ما حنا فك ودباسه ما حنا هذا محلنا محلنا فنك عندنا لا شيء تريد أنا ساقط كلا صوب بحري أو بلا دنبية وبحنا يتلفون وكسرنا cajiib waxay socotaba farxiyo kaba yare waxay keentay tan sidoo kale muuqaal kalena waa uu jira oo ay baraha bulshada ku soo baahisay muuqaalkaas oo ahaa mid ay maxamed biike caadi oo taagayso waraysi oo siiyay Home Cable TV ayaa waxa uu ku sheegay magaceeda iyo sidoo kale fanaaniin badan oo magacyadooda xusay hase ahaatee farxiyo kaba yare way ka xumaatay arrinkaas waxa ugu yeedhay khayrka iyo wanaagga balse waa ay garan laadahay iyo dhaga hadal iyo sidoo kale muuqaalo aan caadi ahayn dhammaanba dadkii daawadana ay ka xumaadeen ayay baraha bulshada ku soo baahisay kaas oo noqday mid ay u malaynayo dad badan oo taageero ahaa inay taageeranimadii kala laabteen qaybta Facebook ayaan arkayay oo muuqaalkaasi haysto haddaba mawduucan ayaan ka hadli doonaa balse marka koobaad waxa xasuusina haddii aad ku cusub tahay channelka Mero Films subscribe ku samee gambalaalka furo muuqaalkana sii share garay oo la wadaag asxaabtaada like ta saarta waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin iyo inaan muuqaalada halkan 24 hours ku soo gudbiyo sidoo kale muuqaalku waxa uu tahay inuu dad badan gaadho haddaba muuqaalka like saar ku soo dhawo warbixinta dhameystiran sidaad ka warqabtaan dadka xumaanta faafinaya iyo sidoo kale fisqiga alle subxaanahu wa ta'ala waa uu nacdalay fanka iyo sidoo kale waxyaabahaasina waxay yihiin xumaanta kuwa soo hoos galown haddaba farxiyo kaba yare waxay ka xumaatay arrinka uu maxamed biike dabcan baraha bulshada la soo wadaagay oo ahaa arrin khayr iyo wanaaga sidoo kale waxay ka dhawaajisay inay lacag la soo siiyay aad u fara badan taas oo lagu yiri gabi ahaanba fanaaniinta ku soo tashkiili sidoo kale naartii iyo ahlu naarnimadii ayaa waxa ay noqotay wax lagu qoslayo muuqaalkan xagga hore aad ku soo daawatay waxa uu ahaa Hodan Cabdiraxmaan iyo sidoo kale farxiyo kaba yare waxay ahaayeen maray ka warramayeen fanka iyo sidoo kale dabcan wax dhaama inaysan haynin haddaba taa bedelkeeda alle subxaanahu wa ta'ala waxa uu yiri qofka ilaahay dartii uga taga wax xun waxa uu ugu bedeli doonaa alle subxaanahu wa ta'ala khayr iyo wanaag iyo wax ka sii fiican waxa uu qaban jiray maxamed biike waan la soconay xaaladiisa sidoo kale waxa uu sheegay inuu fanka ka gaadhay halka Soomaali ka gaadhay heerka ugu sarreeysa waxa ay tahay heesihiisu kuwa aanay milyanka ka soo degin 6 milyan 5 milyan 7 milyan ilaa 10 milyan ku dhawaadka taa macnaheedu waxay tahay daawashada Soomaalida oo xadidkeedu yahay 10 milyan ilaa 15 milyan inta u dhaxaysa oo biike madaxa soo taabtay haddana maxamed biike maxamed mubaarak waxa uu ka dhawaajiyay inaan haba yaraatee fanka Soomaalidu iyo sidoo kale wax magac fanku abtirsadaba uusan faa'iido lahayn adigoo jeeb kasta ku buuxo ayaa waxa uu sheegay inaad haddana tahay qof faqri iyo sidoo kale dhibaato uun meel ilaahay kaga diray si kastaba ha noqotee waxa uu sheegay inay xaggan khayr wanaagsan tahay la isku raac sidoo kale waana xaqiiq oo mataqaana qof diinta ku jira oo diintii u dhow iyo sidoo kale nin fisqi iyo xumaan madaxa kula jira isku mid ma aha haddaba maxamed biike waxay ku tilmaantay cadqaatan lacag soo qaatay taa bedelkeeda inaan haba yaraatee fanaaniintu aanay u jixin ayay sheegtay waxay tahay mid ku carigsanaysa dhammaanba dabcan naarta iyo sidoo kale ahlu naarnimada iyo nacdasha alle subxaanahu wa ta'ala ku socoto inay hareeraha xirato waxay dabcan u aragtaa isteelkii u dambeeyay balse waxaan u malaynayaa alle subxaanahu wa ta'ala hadduusan u dambi dhaafin inay noqon doonto xaabada naarta lagu shidi doono Allahu akbar ilaahay ayaa xumaan ka nisaan saaxiibayaale muuqaalada ay baraha bulshada la soo wadaagaysay kaba yar waxay yihiin kuwa ay marba marka ka sii dambaysa arrinkeeda dabcan aw sii xumaanayo sidoo kale awl wuxuun bay ahayd in dadka soo yara afligaadisay isla waqti xaadirkan waxa ay maraysaa inay diinta iyo sidoo kale kitaabka alle subxaanahu wa ta'ala ay u soo gafto haddaba sidoo kale keligii ma ay tilmaamin balse waxa ay sheegtay in maxamed biike iyo sidoo kale sheekh axmed khayr axmed biif egas axmed biif kolay magacyada wanaagsan ee imka la bixeen ayaa ka munaasib in loogu yeedhay haddaba waxay sheegtay inuu isagu 4 sanadood ku dhawaad oo wax baranayay balse wax sheegi karo isagu hal xadiis iyo sidoo kale aayad balse maxamed biike ay sheegtay inuu yahay qof iska dabcan bacbaclaa oo aan waxba sheegi karin taa bedelkeeda adigu waxa ay ka wadaa fanaaniinta ku jira fanka naarta iyo kuleylka hadhow toolana aynu wada qaybsano si kastaba ha noqotee ilaahay ayaa xumaan ka nisaan saaxiibayaale waxaynu alle subxaanahu wa ta'ala ka baryaynaa inta jidka siraadal mustaqiimka ka lunsan inuu alle subxaanahu wa ta'ala soo hado
بوتيو باربر شواي فرحين إنك سوي كيسي واي عبد الرحمن نيجي قلادة وحيرة فرحين إنك هواي الله قصة يا حد مقبحنا فوق وتخرج مقبحنا فوق والدباسة قبحنا لك أنا محلل فرحين فنك عدينا الله شيء تريد أرساقتك لصوب حري أو بلاد دنبيا وبحنا يتلفون وكسرنا وإسرائنا فنك الهرب إلى نيروبي لعكت الصوت وسعنا sidaad ka dhex arkaysaan muuqaalka Farxiyo Kabayare iyo sidoo kale Hodan Cabdiraxmaan waxay yihiin kuwa ku qoslaya iyo sidoo kale ku faraxsan in ay dabcan ay soo aflagaadeeyaan dadka khayrka iyo wanaaga ka dhex faafinaya fanka markii horena fanaaniin laha balse isla waqti xaadirkan dhamaanba soo xiray baabka fanka la yiraahdo haddaba waxay sheegeen in haddii ay heli lahaayeen wax dhaama ay dabcan fanka iska dayn lahaayeen iyagoo qosol iyo sidoo kale dhoolla cadeyn ku daraya taa macnaheedu ma aha inay xataa haddii wax kale helaan ay ka doorsan lahaayeen waxay tahay oo dabcan dhoolatus iyo sidoo kale na maqlayna arkay ilaahay waxaanu ka magan galay cadaabihiisa kulkulul ee dambeeya sidoo kale Farxiyo Kabayare waxay tahay mid mar walba baraha bulshada la soo taagan fisq iyo xumaan haddii wax yar ka dhacaan social media waxay tahay mid markaaba ku soo gudbinaysa waxyaabaha dabcan ka dhacay hore waxaanu la socday muuqaal hore ay mar dhaweyd soo duubtay isla weekend gudihiisa oo ahaa nin baraha bulshada aad loo wareejinayay inay aad u haysatay oo caaysay taa macnaheedu ma aha kaasoo kaliyata inuu yahay balse wax kasta oo social media ka dhaca waxay la soo wadaagaysaa baraha bulshada iyadoo cod ama video la soo wadaagaysaa si kastaba ha noqotee ilaahay waxaanu ka baryaynaa cidii lunsan inuu soo hadeeyo kulli iyagoo kaliyata ma aha xataa adiga videoga ay daawanaya haduusan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xidhnow oo xadhigiisa qabso maxaa yeelay Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu dunida noo keenay jinniyihiisa inaynu caabudno haddaba walaal ku xidhnow Allah subxaanahu wa ta'ala ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu dambi dhaaf ina siiyo aakhiradeenna iyo adduunyadeennaba si kastaba ha noqoto saaxiibayaale waa ku mahadsantihiin ka mid ahaanshaha iyo kusoo biiritaanka channelkeena waxaan si xushmad la kaga codsanayaa hadduusan subscribe ku ahayn inaad subscribe tiraahdo gambalaalka furato muuqaalkana sii share garayso ood la wadaagto asxaabtaada 100,000 ee subscriber wax yar baa inooga hadhay madaxana waynu la sii galaynaa marka insha Allah sanadkan soo socda waxaan rajaynaynaa 2022ka 100,000 subscriber inaan xubno kala barkii waynu dhaafnay in badan ma sha Allah waan ku mahadsantiin saaxiibayaal waxaan rajaynayaa inta dhimanna inay idinku keeni doontaan kulli qofan Allah subxaanahu wa ta'ala u mahad celiyay bini'aadamna u mahad celiyaa la sameeyeen saaxiibayaal mahadsantihiin sida quruxda badan ee tan iyo maalintii aan sameeyay ilaa maanta ii garab taagan tihiin muuqaalkan xiga inoo balana aad baan idin salaamaya saaxiibayaal mala hadalkan waan isku dheereeyay